Waxaan idiin soo gudbinayaa sheeko jacayl oo xanuun badan. Inta badan sheekooyinka jacaylkan waxa ay yihiin kuwo inta badan wax laga barto. Sheekooyinka inta badan aan soo qaadanane waa sheekooyin aan isleenahay saaxiibada ku xiran bartayda YouTube-ka ee Socdaal 24 wax badan ayay ka faa'iidi doonaan. Waxaana sidoo kale saaxiibadeyda ka raaligelinayaa in dhowaanahan janaalka aan wax soo gelin, laakiin insha Allah hadda kadib muuqaalada si joogto ah ayay noo noqon doonaan. Waxaan maanta warbixintan idiin wada ee noqonaysaa anigu haddii aan lacag heesa lahaa jacaylkaygu waan ku guuleysan lahaa, laakiin jacaylkaygu waxaan ku waayay lacag la'aanta i heeso iyo waxaan ku waayay inaan ka soo jeedo qoys tabartooda ay hoos tahay. Inta badan lamaanaha markii ay wada sheekeysanayaan ama marka xiriirka jacaylka ay wada sameynayaan isma weydiiyaan adigu qabiilkee tahay, lacag miyaad haysataa, laakiin waxay isweydiiyaan sida ay isku fahmi karaan ama sida jacaylkooda baaxadda weyn ee halkaas ugu miro dhali karaan. Inta badan xiriirka waxaa sameeyo dhalinyaro da'doodu ay ka hooseyso 25 sano ilaa 30 sano. Inta badan dhalinyarada xiriirka jacaylka sameysana waxa ay yihiin kuwo daacad ka tahay. Inta badan dadka qora arrimaha jacaylka waxa ay sheegaan in jacaylka loo qeybiyo 3 qaybood oo kala ah: kan dhabta, kan dhalanteedka iyo kan daneysiga. Haddii mar qofka jacaylka dhabta ah uu ka yahay, way adag tahay in uu iloobo qof uu si dhab ah u jeclaaday, mana suurtagelayso in jacaylka dhabta qof si dhedheel ah uu ku wado. Waxaana inta badan la sheegaa qofka jacaylka markii uu saameeyo, xitaa haddii uu isku dayo qofkii uu jeclaaday in uu iloobo in ay ku adkaanayso. Mid ka mid ah saaxiibada ku xiran barta YouTube-ka ee Socdaal 24 ayaa nala soo wadaagtay, anigu wiilka aan saaxiibka la ah aad ayaan u jeclaa ayay dhahday. Wallaahi wixii aan rabo xataa wuu isii jira ayay dhahday, laakiin dhibaatada jirta ayaa waxay ahayd in uu ka soo jeedo qoys tabartooda aad u liidato, sidoo kale qabiil hoosena uu ka soo jeeday. Waalidiinteeda markii arrinkaas aan u sheegay waa igu gacan saareen, waxayna dhaheen taasi suurtagal ma ahan. Haddii aad isku daydid inaad ninkaas raacdidna gebi ahaanba waxaad iloobi doontaa nolosheena ayay dhaheen. Ninkaas lacag ma haysta ayay dhaheen, sidoo kale qabiil hoose ayuu ka soo jeedaa. Aad ayayna iigu adkaatay. Arrinkii ayaan wiilkii u sheegay ayay dhahday. Markii arrinkii wiilka aan u sheegane wuxuu u mooday in aan qiyaamayo. Waxaana inta badan la kulma ayay dhahday xiriir kale markii aan sameyn rabo, in qofka xiriirka haddii aan la sameyn rabo aan xanuunsado ayay dhahday, iyo dhibaatooyin fara badan. Qofkii aan jeclayne shakigaas ayuu iga qabaa. Waalidiinteedina waxay dhahayaan qofkaas qabiil hoose ayuu ka soo jeedaa, lacagna ma haysto. Wax aan sameeyo ayaan aqoon waayay ayay gabadhaas dhahday. Saaxiibada ku xiran YouTube-ka Socdaal 24 waxaan ka codsanayaa, waxay dhahday, in talooyin qurux badan ay soo siiyaan. Halkaas ayaan ka akhrisan doonaa talooyinka. Waad mahadsantihiin. Halkaas ayaan ku soo afmeerayaa qaybtii koowaad. Waxaa inala socodsiinayay anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed, Socdaalka Dunida.